boqol iyo labaatan dimuqraadi ah ayaa dhaheen haa una codeeyeen bilkii stimuluska shalay in shacab weynaha Mareykan la siiyo lacag 211 oo 210 kamid ah xisbiga jamhuuriga ayaa dhaheen maya shacab weynaha lacagta lama siin karo ama bilkan ma ansax maayo hal dimuqraadi ayaa ka fallaagoobay xisbiga dimuqraadiga waxay u kala codeeyeen 220 haa 211 maya sidaas waxa ku hirgelay American Rescue Plan oo ahaa bilkii uu soo qortay madaxweynaha cusub 7 asbuuc joogo Joe Biden bilkan ayaa hirgelay waxaan la sugayaa in uu saxiixo goordhow laakiin inta idin sheegin qaar sharafta meel walba joogtaan waa salaamantihiin waa Maxamed Faarax fadlan channelkayga YouTube ku xirnaada subscribe garee fikradaadana ka dhiibo like button ka saar lana wadaag videogan hadda ku aragtay social media Facebook iyo YouTube saaxiibada iyo aqyaarta familkaaga waxaan sidoo kale rabaa inaan taxsi u diro dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba joogaan iyo ehelkii qaraabadii ka geeriyooday madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Ali Mahdi Allah u naxariisto jannadii Allah geeyo wuxuu ka wada dhintay dhammaan ummadda Soomaaliyeed samir ima Allah dhamaanta naga wada siiyo qaasatan reerkiisa iyo ehelkiisana samir Allah ka siiyo jannadiina waa ugu duceynayaa Allah jannadii geeyo dambigiisana Allah dhaafo aamin aamin aan ku soo laabtay shalay waxaa la ansixiyay bilka stimulus American Stimulus Plan waxaana ansixiyay xisbiga dimuqraadiga ah ayaa u codeeyay dhamaantood 220 kamid ah inkastoo hal qof uu ka falaagoobay bilka islaama waxaa loo diray shalay madaxweyne Biden inuu saxiixo sidoo bilkan sharci ku noqdo hadaba madaxweyne Biden waxa lagu balansan yahay isla shalay press secretary waxay tiri wuxuu saxiixi doonaa jimcada bari gelinka dambe ayuu qalin ku taagi doonaa ka bacdi uu hirgalayaa bilkan qof walbana lacagtiisa 1400 waxa loogu soo dirayaa accountiga ama waxa loogu soo dirayaa post office ama boostada loogu soo dirayaa qaabka IRS information ku hayso bilkan wax laga bedel male aqal qoys waxa ka bedel male maadaama aqalka salaameyn ku suubiyeen sidii ayuu ku hirgalayaa wana sida ogeedeen qof walba oo Mareykan inuu helayo 1400 qofkii 25 ka yar suubiyo lamaanaha isqabo 150 kun wixii ka yar suubiyana waxay helayaan 1400 ilaa 1400 cunug walba oo Mareykan ah oo jiro 6 sano wixii ka hooseeyo ayagoo income cap-ka 25 kun sheegaya ah wuxuu helayaa 3600 sanadkii ama billa loo siinayaa ama sanadkii hal mar IRS wada siinaysaa 6 sano ilaa 12 sano wuxuu helayaa cunugaas ama carruurta lagu siinayaa waalidkooda 3000 oo doolarka Mareykanka ah ama billa loo siinayaa July ka bilaabanayso ama waxa la siinayaa sanadkii hal mar arinkan waxay guul u tahay dhammaan waalidiinta meel walba ay joogaan oo carruurtooda loogu talagalay inay kula tacaalaan faqiirnimada ee kaga saaran carruurtooda waxay rabaan ugu iibiyaan ha aad cunto dhar iyo wax walba waa arin ugu talagalay Biden in carruurta Mareykanka uu poverty ka saaro in ka badan uu ka saaro hadii bilkan hirgalo oo si fiican u shaqeyn la filayo oo yaraan 14 milyan oo carruur Mareykan iyo ka badan laga saari doono mataqaan leenka ugu xun ee gaajada sidoo kale buqaayadaha ayagana 28 bilyan dollar ay helayaan small businessyada lacag waxa lagu tacaalay EIDL iyo PP 7 bilyan dollar EIDL 15 bilyan dollar ila 12 bilyan dollar la siin doona grant iyo deen ayayna isku dhaxayn doontaa 350 bilyan dollar gobolada Mareykan ayaa la wada siinayaa sidoo ugu tacaalan caabuqa coronavirus dhaqaalahoodana kor ugu soo qaadaan mar kale kuna dagaalamaan shaqo la'aanta goboladooda ka jirto tani guul waxay u tahay gobolada Mareykan kontonka gobol Mareykan maadaama small businessyadooda ama ganacsigooda uu aad u saameeyay caabuqa coronavirus muqaadaha iska xirnaayeen shaqaalooyin badan layoff la siiyay gobolada marka waxa loogu talagalay in dhaqaalahooda dib ugu yeegleelaan qodob inta muhiimka waa idin sheegay inta wax laga bedel male waana la sugayaa in jimcada uu ansixiyo madaxweyne Biden sidoo kale barnaamijka Paycheck Protection Program aad ogtihiin oo wali socdo March 3 2021 uu ka bedelay Biden wali wuu socdaa waxa laga bedelo kaliya waxa waaye self employed sole proprietor dadka schedule-siga kaliya ku xareeyo ayaa modified oo ku suubiyo wax ka bedelay grosska ayaa la isticmaalayaa gross income-ka ama number 1 waaye ama number 7 waaye numberkaas ayaa waxa loo qeybanayaa 12 waxa lagu dhufanayaa 2.5 intaas oo lacag ayaa helaysa waa hadii se SPA ay ku approve gareyso oo application kaaga ay approve gareeyaan Small Business Administration waxdaas oo hoos timaado Department of Treasury barnaamijka wali uu furan yahay wuxuuna soconayaa ilaa March 31 2021 fadlan hadaad buuxinin buuxi small business data tahay
u tag bankigaaga ama mataqaanaa laamaha kale ee laga buuxiyo sida lagu caawiyo applicationkaaga lagu caawiyo haddaad Columbus joogtid aad rabtid barnaamijkan cid kaa caawiso oo sole proprietorshipna aad tahay self employed aad awoodatid mataqaanaa iskaajusi waxaan ku faraxsanahay inaan ku caawiyo banaadir ay xafiis ku leeyahay 31 hoos fadlan igu imaam waan ku caawinayaa sidoo kale S corporation dadka ku xareeyo oo kala xareysto canshuurtooda qaarna iskaajusi ku xareeyo qaarna S corporation ku xareeyo qofkii S corporation ku xareeyo 1099 lacagta PP-ga ma helayo qofkii S corporation ku xareeyo oo W2 ah oo shaqaalihiisa W2 ama canshuur iska gooyo ayaa lacagtan helaya oo kaliya haddaba haddii aad tahay S corporation oo 1099 line 17 iyo line 18 wax ma lacag kugu yaalaan canshuur ma bixisid caafimaadna ma laga jiro shaqaalana ma lihid in that case waxa lacag oo PP aad helaysid male rule-kan cusub Biden laakiin hadda W2 tahay homelka day kartaa S corporation aad ku xareysid W2 shaqaalaha ka asiisid ha lacag waa leedahay CP-ga u tag hadda wax weyn tahay ama qayd weyn tahay ama homelka day care aad leedahay qofka payroll-ka ku xareeyo waayo waxa SPA rabaan in payroll-ka dhamaan ayaga loo wada diro halkaas waxaan ku soo gunaanadayaa lacagtii American Rescue Plan ee la ansixiyay shalay bari oo Jimcaana Joe Biden ayaa hirgelin doona qof walba anaga naga mid waxa uu soo socoto $1400 hadda carruur leedahay 7 carruur 6 carruur ku dhacto $1400 isku dhuftid wad helaysaa lacagtaas aad u fara badan tahay sidoo kale carruurta hooyooyinka abooyinka oo guri ayaan leeyahay maadaama $3600 cunugu ay ku helayaan ama $3000 ku helayaan sanad walba bil walba ama $300 ama $250 joogta la siin doono ayagoo labadooda mid kala doortaan IRS u tag qofka ku xareeyo u sheeg accountigaaga lacagtaas waxay ku soo dhacaysaa oo kaliya qofkii mataqaanaa canshuurta ku xareysto cunuga waxaa jirto dhamaanteen inaan caawino eedo ahaan hawar ahaan inaan carruurta kala qaadano oo ku caawino soo marka ogaada lacagtaas waxay ku soo dhacaysaa qofka canshuurta ku xareeyo oo kaliya sidoo kale American Rescue Plan-kan dadkii 2018 canshuurta ugu dambeysay ma helayaan waa 2019 iyo 2020 dadkii xareeyay canshuurta ayaa lacagtan helayo oo $1400 haddii canshuurta ugu dambeysay inay xareysay 2018kii fadlan sida ugu dhaqadan canshuur xaree hatta hadda zero income tahay zero income xaree 2019 sida ku heshid IRS-na akhbaartaada u hesho lacagtana ee ku soo dirto accountigaaga ee ku soo dirto mar kale waa maxaan faarax lacag ay socoto accountigiina ka warsuga lacagtana familkiina ku taakuleeya waxana ku qabsada lacagta idin socoto dhamaan tiin salaamatiin